dowladda Masar maalmihii ugu dambeeyay waxay la kulmaysaa cadaadiskii ugu xooganaa wixii ka dambeeyay markii ay xiriir la yeelatay dowladda Iran waxaad moodaa in xiriirka ay la lahayd dowladaha kale ee qaliijka aad u sii xumaaday inkastoo ay qaarkood isku wanaagsan yihiin haddana ma wanaagsana xiriirka kala dhaxeeya Sacuudiga Imaaraadka Carabta iyo dowladaha kale Imaaraadka Carabta meelo badan ayay isku hayaan si gaar ahaaneed arinta biyaha wabiga Niil iyo bixireenka dowladda Ethiopia iyo dagaalka ka soconaya gudaha dalka Suudaan dhinaca kale masaaridu waxay dadaal badan ay ku bixinayaan inay helaan hubka uga casrisan caalamka si gaar ahaaneed hubka dowladda Shiinaha ay soo saarto diyaaradda J10 si loo yaqaan iyo diyaaradaha kale ee la tartami karaya diyaaradaha Israa'iil ay ku hubeysan tahay ee F-35 iyo kuwa kale ee casriga ee Mareykanka uu soo saaro ujeedada ka dambaysa masaarida in cadaadis la saarana waxa lagu tilmaamay in koow ay ka tahay diidmadii barakicinta dadka shacabka ee magaalada Gaza oo la doonayay inay gacanka Siinay ay dajiyaan halkaasina qaxooti ay ku noqdaan masaaridana waxay dareensanayeen mustaqbalka in amnigooda qatar uu galayo Israa'iilna ay si tartiib ugu faafi lahayd deegaanada gacanka Siinay iyagoo doonaya inay ka dhabeeyaan qorshaha isballaarinta ee ay doonayaan ilaa dhulka Lebanon iyo Syria iyo Sacuudiga iyo Turkigaba ay ku qabsadaan Marwa Fertility Center waxaad ka helaysaa daweynta xanuunada keena dhalmo la'aanta ragga iyo dumarka ku dooro baaritaan la hubo daweyn iyo beerista ubadka IVF oo la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo mahadsanid cadaadiska hadda marka waxa lagu waramayaa dhinaca kale Mareykanka inuu bilaabay wuxuu doonayaa Mareykanka inuu saldhigyo military uu ka sameeyo jasiiradda Tiran iyo jasiiradda la yiraahdo Sinafir ama Sanafir labadaas jasiiradood hadii Mareykanka saldhig uu ka sameeyo marka wuxuu u danaynayaa Israa'iil marka la eego jasiiradda aan iraahdo dekada la yiraahdo Ilaad ama Rashaash oo dhowr jeer xoutiyiinta ay weerareen iyo kanaalka Suez oo masaarida dhaqaale badan ay ka sameeyaan jasiiradahan hadda waxay hoos tagaan dowladda Sacuudiga Mareykankuna wuxuu doonayaa saldhig military inuu ka sameeyo tanina waxay halis ay ku noqonaysaa amniga guud ahaan ee dowladda Masar sababtoo waxay xadgudub ay ku tahay badqabka marinka gacanka Aqaba iyo marin biyoodka kanaalka Suez dadka qaarkii waxay yiraahdaan marka goobtan waa goob yar laakiin haddii saldhig Mareykanka uu ka dhisto halkaasi waxay noqon doontaa wada toosa oo Israa'iil ay ugu xirmi doonto gacanka Aqaba iyagoo meesha ka saari karaya muhiimadda istiraatiijiyadeed ee dowladda Masar marka hore aan faham guud ka qaadano jasiiradahan halka ay ku yaalaan iyo sida ay gacanka Aqaba iyo gacanka kale ee Suez la yiraahdo ay saameyn ugu yeelan karayaan labada jasiiradood waxay ku yaalaan halkan jasiiradda Tiran waatan jasiiradda kale ee Sanafir la yiraahdo halkan ayay ku taalaa Sacuudigana waa kan halkan ayuu ku yaalaa laakiin Masarna waatan halkan ayay ku taalaa gacanka Aqaba halkan ayaa loo yaqaanaa oo ilaa iyo Jordan tagaya waa halkan kanaalka Suezna waa halkan gacanka Aqaba marka aad cabaar sii socoto marka waxa dareemi doontaa halkan in Israa'iil ay ku taalo ujeedada ugu dambeysana ay tahay in Israa'iil dhankan aysan caqabad kaga imaanin Mareykankana halkan uu doonayo inuu wax badan uu la socdo oo amniga guud ahaan gacanta uu ku hayo jasiiradahan waxay aad ugu dhow yihiin dalka Masar waxaana ay ku dhow yihiin magaalada Sharm el-Sheikh la yiraahdo Masar ayaa mar xukunka jasiiradahan hayn jirtay laakiin gabi ahaanba hadda Sacuudiga ayaa lagu waramayaa inuu leeyahay ama uu xukumo biyaha badda casna waa halkan oo ugu dambeyntii ilaa halkan waa halkii loo yaqaan Babul Mandab oo goobtii muhiimka ahayd Yemen halkan ayay ku taalaa maadaama Djibouti iyo dowlado kale ay diideen xoutiyiinta in laga weeraro suuragal ma tahay in halkan Mareykanka uu doonayo saldhigyada uu ka sameystay inuu xoutiyiinta uu ka soo weeraro laakiin Sacuudiga ayaa wali maamulo oo tani caqabad ay ku noqon doontaa labadani jasiiradood sanadkii 2016 ayaa lagu waramayaa masaaridu inay maamulkooda ay wareejiyeen waxaana lagu wareejiyay boqortooyada Sacuudiga tani waxay dhalisay marka mucaarad weyn oo gudaha ah iyo mudaharaadyo halkaasi ka dhacay maxkamadda dalka Masar ayaa xitaa mar joojisay wareejinta laakiin baarlamaanka dalka Masar ayaa markii dambe si rasmi ah u ansixiyay bishii June 2017 in si rasmi ah jasiiradahan maamulkooda loogu wareejiyay Sacuudiga iyadoo sababta rasmiga ee ka dambeysay aan la ogeyn iyo masaarida wax looga badashay mustaqbalkana Mareykanka waxa uu ogaa halkan inay caqabad ku noqon doonto hadii masaaridu ay degaan maxaa yeelay masaarida Israa'iil aad ayaa looga ilaaliyaa waana sababta loola saxiixday heshiiskii Camp David sanadkii 1979 marinka Tiran loo yaqaan marka maraakiibta Israa'iil si caadi ah ayay u marayeen sanadii ugu dambeeyay si gaar ahaan tan heshiiskii Camp David ee Masar iyo Israa'iil dhex maray tani markii dowladda Masar ay diiday in dadka Falastiiniyiinta gacanka Siinay la geeyo cadaadiskii ay aad u sii xoogaystay waxaana ay dowladda Masar ay isku dayday inay dhisaan difaac aad u adag
iyaga oo doonaya inay hub ay ka helaan Shiinaha iyo dowlado kale. Mareykanka marka haddii marka saldhigyadan uu gacanta ku dhigo waxay ka dhigan tahay baa layiri in uu aad ula socon doono dhaqdhaqaaqa guud ahaan ee biyaha gobolka iyo dhanka Tiiraan marinka loo yaqaan waxa ka gudbaya. sidoo kale wuxuu doonayaa inuu aad u xakameeyo dhaqdhaqaaqa kanaalka Suez iyo waxyaabaha ka gudbaya. arinta kale ugu muhiimsan waxay tahay wuxuu doonayaa ka hortag inuu ku sameeyo saameynta Shiinaha iyo Iiraan ee dhanka gobolka. maxaa yeelay Masar maalmihii ugu dambeeyay waxay xiriir dhow la sameysatay dowladaha Shiinaha iyo sidoo kale Iiraan. ujeedada kale uu ka leeyahay waxay tahay inuu kor u qaado amniga guud ahaan Israa'iil oo halkan ayuu doonayaa inuu gaashaan uu kaga dhigo Israa'iil halkanna uu ka ilaaliyo. waxa kale uu doonayaa in culays weyn uu saaro Masar iyo inuu xakameeyo go'aankeeda madax banaanida maadaama ay sanadihii ugu dambeeyay Masar u muuqanaysay inay doonayso si tartiib ah inay kaga hoos baxdo Mareykanka iyo xulafadiisa. arinta ugu muhiimsan waa kordhinta saldhigyadiisa military ee Mareykanka uu ku leeyahay caalamka. Mareykanka in ka badan 750 saldhig oo military ayuu caalamka uu ku leeyahay. qorshaha labadana jasiiradoodna waa qayb ka mid ah baahinta saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay caalamka isagoo ku ilaalinaya danihiisa dhaqaale, tan istiraatiijiyadeed iyo shidaalka bariga dhexe. sidoo kale ma aan dhihi karaynaa ujeedada ka dambeysana waxay tahay inuu la socdo dhaqdhaqaaqa guud ahaan ee dhinaca Baabul Mandab iyo waxyaabaha ka gudbaya iyo waxyaabaha soo galaya iyo saameyntiisa guud ahaan ee dalalka bariga dhexe. shanta ujeedada ayaa ka dambeysa Mareykanka inuu halkaas uu saldhigyo military uu ka sameeyo waqti xaadirkan. aragtidaada qaybta hoose ku reeb like saar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada waad mahadsan tahay. falanqayntii guud ahaan ee qaybtan waa naga inta mid lamid intaan ku kulmi doono nabadgelyo.